munaasabadan oo ahayd xuska maalinta 1 Luulyo isla markaana xorriyadooda ay heleen gobolada koonfureed ee Israaciil waqooyiga koonfurta Soomaaliya ayaa habeenkii xalay ahaa lagu qabtay xarunta maamulka degmada Doolo Soomaaliya waxaana xafladan si heer sare ah loo soo agaasimay ka soo qayb galay maamulka degmada Doolo saraakiisha laamaha ammaanka ciidamada daraawiishta Jubbaland ee degmada iyo qaar ka mid ah qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Doolo intii munaasabada ay socotay ayaa waxa goobta lagu soo bandhigay ciyaaraha hidaha ee dhaqanka Soomaaliyeed gudoomiyaha degmada Doolo Soomaaliya Bashiir Xasan Cabdullaahi iyo qaar ka mid ah bulshadii ka soo qayb gashay xafladda ayaa ka sheekeeyay xornimada iyo halgankii la soo maray xilligii gumeystaha iyo sidoo kale muhiimadda dadka Soomaaliyeed ay u leedahay xuska munaasabada 1 Luulyo waxayna hambalyo u direen dhammaan ummadda Soomaaliyeed munaasabadan degmada Doolo iyo bulshada ku dhaqan waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa shanta bari say ugu taagnaayeen oo hadda caawa la marayo 6 saac oo ugu dambayso xalfadan qiimaha badan inay ka qayb galaan ama xusaan ama ay u dabaaldegaan aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa si guud ahaan haddaad bannaankaa seexato oo badbaado aad ku hesho oon kamaandho lagu weydiinayno oon mustawaqa lagu weydiinayno oo meesha adugu aad lahayd ay tahay hawshu waxaa weeye hanti ay macaan waa midaan hooy laga awra war midaan adinkaa iskale cid idinku haysata ma jirto sidii lagu soo celin lahaa calanka cududiisa oo dhallinyarada Soomaaliyeed inta soo kacdo sidaas waa in dhulka wax uga qaban lahayd ha isku day haddaan soo qaadno munaasabadan ama xalfadan waa 1 Luulyo Israaciil labada gobol koonfurta iyo waqooyiga oo calansaarkoodii calanka Soomaaliya la mideeyay oo laga dhigay calankan buluuga ah lana saarayo 6 saac oo habeenimo horta xafladda sharaftaas ay leedahay oo badan أنا بحاجة لبتشي على الصوماليات وقف ضدك الصوماليات وقبلنا كل النور من رأس عسير إلى رأس كالبوني وحكوا اليوم وأستاروا ويذكرها عن ما يذكر كل مميزة فرصة يستن هذا فرصة سينيسا وقدها الصومالية وعدونا فرصة سينيا عدونا فرصة سينيا فرصة سينيسا فرصة سينيسا waxaad jaanis u siisteen dalkaas si sahlan inay ugu soo noqdaan inay u magacyo bixiyaan inay adinka idin qaybiyaan Soomaaliyay tooso isku tiirsanayay Soomaaliyay tooso isku tiirsanayay abaara saacada markii ay soo gaartay 6 ama 12 habeenimo ayaa ciidamada halkaas ay ku saareen calanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya